ومدحوين حسن الشيخ isaga ismu caraday isaga ayaa iska soo horjeeda isaga ayaa istilmaamaya annaguna marqaatiga nool ayaanu nahay muxuu yiri madaxweyne xasan sheekh maxamuud laba arrimood qodob waaye meel qof banaan baxayo tabeelo wato codkiisa inuu cabiro rabo dastuurkan uu ogol yahay ninka ay dhibayseen oo adkaysan karina diiday jidadka xiraan militariga ciidamadii wixii booliisku wixii dhan banaan ku soo dhiganay yaa biri dadka Soomaaliyeed inta soo dhaqaaqaan ayagoo xor inta isku yimaadeen codkooda si xor ay meel ugu ridayaan macnaha labadaas arrimood raba dadka Soomaaliyeed inay isbarbar dhigaan waa qodob waa madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo isaga istilmaamaya waa madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo isaga ismu caraday yaa diidan dibadbaxa shacabka yaa diidan shacabka boorarka wata ee doonaya in ay arrimahooda ka hadlaan isla madaxweyne xasan sheekh maxamuud yaa haddana doonayo oo raadinayo oo nale doorasho qof iyo cod ayaan qabanayaa cod bana laygu dooranaya waa isla madaxweyne xasan sheekh maxamuud yaa mucaarada oo diidana oo ka soo horjeeday dibadbaxa in la hor istaago isla madaxweyne xasan sheekh maxamuud waa asagii oo laba qofooda waa isla asagii oo ismu caaradaya waa isla asagii oo isdiidan qodobka koowaad ee barnaamijka labada xasan sheekh maxamuud ayaan uga hadli doonaa qodobka labaad madaxda dowladda kuwa nale doorasho qof iyo cod la qabanaya waxaa ka mid ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud ra'iisul wasaare xamse cabdi barre wasiirka arrimaha gudaha cali xoosh wasiirka cadaaladda xasan macalin ma jiraan midkood tegi kara tuuladii ay ku dhasheen ama degmadii ay ka soo jeedeen madaxweyne xasan sheekh maxamuud caldheer iyo masagawa iyo galcad doorasho qof iyo cod ma ku qaban karaa wasiir xasan macalin ceelbuur ma ku qaban karaa doorasho qof iyo cod wasiirka arrimaha gudaha garowe ma ku qaban karaa doorasho qof iyo cod sidoo kale gudoomiyaha gobolka banaadir duqa muqdisho shabeellada dhexe doorasho qof iyo cod ma ku qaban karaa iyo tuulada waa asaga ka soo jeeda waa tilmaam u baahan inaad fahamtaan waxay ka hadlayaan doorashadu qof iyo cod maanta haddii Soomaaliya ka dhacdo inay wax kasta daaweynayso cudurrada inay meesha ka saarayso dadka inay isu keenayso yani waxay aaminsan yihiin ilaa hergebka inay daaweynayso afartaas qofood oo noo sharxaysa arrintaas hal nin oo deegaankiisa santuuq geysan kara kuma jirin madaxweyne xasan oo dhulkiisa shabaabeyso waa ra'iisul wasaare saalax oo aan cirgaaba tegi karin waa xoosh oo garow aan tegi karin waa xasan macalin oo ceelbuur aan ku geysan karin afartan nin oo nala hadlaysa oo ka hadlaysa in doorasho qof iyo cod la aado waa afar nin oo deegaankooda aan tegi karin madax iyaguba ka shaqaynaya kala geyn iyo burburin oo aan ula jeedo maamul dhisanoo nabada in la burburiyo dad maamulkooda wada taageersan ka tirsan in la kala jaro waa dhaqanka kooxda dumujideed ee hadda inoo sheegaya doorasho qof iyo cod aanu qabanaynaa madaxda dalka qaarkood waxay ku leeyihiin doorashada qof iyo cod waxay u roon tahay dowladnimada wadajirka soomaalinimada isla iyagii ayaana jubbaland ka dhex wada kala geyn qabaa'ilada halkaasi degan isla iyagii ayaa puntland maanta ka dhex wada kala geyn dadka halkaasi ku nool isla iyagii ayaa hiiraan iyo shabeellada dhexe ka dhex wada kala geyn hadda waa isla iyagii ficilada socda iyo dhaqanka kooxdan iyo waxay sheeganayaan bal maxaa isku dhow aan wax badan ka ogaanay ma jiraa waxa isku dhow oo aanu dhihi karno intaa iyo intaaba iswaafaqaysa oo maanta kuwa maamulka haya aynu ku amaani karno ama aynu ku bogaadi karnaba mucaaradnimo meel iska dhig runta aan ka wada hadalno wixii jira aanu isla wada aragno haddaad mucaarad tahay iyo haddaad muxaafad tahayba adigoo dhanba runta ayaa lama huraan ah inaad wax ka ogaato waxna ka maqasho bal kooxdan talada dalka haya ayaan wax badan ka dhihi doonaa soo dhawaada waxaad iga daawanaysaa youtube-kayga labaad cabdulaahi balwaan waa youtube aad kala socon karto barnaamijyada aan baahiyo si aad mar walba ula jaan qaado barnaamijyada ka baxa youtube-kan cabdulaahi balwaan waxaad ka mid noqon kartaa saaxiibada ku xiran subscribe saaro calaamada kabareelka furo sidoo kale waxaad iga daawanaysaa facebookayga pageka cabdulaahi balwaan بيجكاس فيسبوك هدي أتكو عصبتها فلوغري سي أيضا كوسيجين برنامج هذا أمباهيو بيجكاسنا أتكدا وكرتو سونو هذا نمانتين صاحب هذا يوتيوب كعبد الله بلوان يقدر داورية يا صاحب هذا فيسبوك بيج كعبد الله بلوان بيقدر داورية سونو هذا ومدحوين حسن الشيخ السجع اسمه عربي
isaga ayaa iska soo horjeeda isaga ayaa istilmaamaya annaguna markhaatiga nool ayaanu nahaye muxuu yiri madaxweyne xasan sheekh maxamuud laba arrimood qodob waaye meel nin qof bannaan baxaayo tabeelo wato codkiisa inuu cabiro rabo dastuurkan uu ogol yahay ninka ay dhibayseen oo adkaysan karina diidaayo ee jidadka xiraa militariga ciidamada iyo wixii booliisku wixii dhan bannaanka usoo dhiganayo yaa biri dadka Soomaaliyeed inta soo dhaqaaqaan ayagoo xor inta isku yimaadeen codkooda si xor ay meel ugu ridayaan macnaha labadaas arrimood raba dadka Soomaaliyeed inay isbarbar dhigaan waa qodob waa waagii uu mucaaradka ahaa wuxuu ummadda Soomaaliyeed waagaasi u sheegay in markaad aragtaan buu yiri siyaasi kule hadalkayga isfaclu dhigeyso doorasho qof iyo cod aan qabanaya oo codka dadweynaha ayaan rabaa oo haddana diidan buu yiri dad shacaba oo dibad baxaya wuxuu yiri aqliga ma galayso waa runtiis isma qabanayso dimuqraadiyadan rabaa iyo dibad baxan diidaya waa kaf iyo kala dheeri waa qof dimuqraadiyad rabaa xorriyadda hadalka kama soo horjeesa lahayn qof dimuqraadiyad iyo qof iyo cod raba hooyooyinkii xalay Siinay kama afduuba lahayn xalay Siinay hooyooyinkii hadal xorriyad leh ku hadlay ee dhibka haysta u gudbiyay bulshada Soomaaliyeed xalay labadii habeenimo lagama afduuba lahayn xaafadda Siinay hadduu madaxweynuhu dimuqraadiyad rabo dibadbax nabadeed ma diidan lahayn oo dad boorar wata waa isla madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo isla isaga istooganay wuxuu marka meesha ka saaray waa afkiisan ka hayna haddaad aragtaan qof diidan dibadbax dad boorar wata beentis waayo qof iyo cod ma rabiyo beentis waayo isagaa noo sheegay maantaan isku cabiraynaa marka bal wixii shalay isagoo mucaaradka ahaa uuna yiri iyo ficilka maanta socda ayaan isku cabiraynaa kow madaxweynuhu dibadbixi waa diiday muqdisho ka socday wuxuu rabaa qof iyo cod annagaa dhahayna marka waa beentis ilaan isagaa hore noo yiri markaad aragtaan qof dibadbax diidaya oo kule qof iyo cod baan rabaa beenuu sheegaya annagana maanta waxaan leenahay qof dibadbax diidaya oo qof iyo cod raba waa beentis weligay qof aan u dhigo madaxweyne xasan sheekh maxamuud macalin marqaato uma baahnaba maba ku wareeraysid maanta haddii aad rabto inaad daba gasho madaxweyne xasan sheekh ma kugu qaadanayso hal saac xataa inaad baarto maxaa yeelay meel kastaba waxaa kaaga hor imaanaya isagoo istooganaya waa isla madaxweyne xasan sheekh maxamuud maanta haddii uu madaxweynuhu soo fariisto fagaare oo ay dhacdo si xorriyad leh in su'aalo loo weydiiyo maba u baahna madaxweyne xasan sheekh in su'aal loo weydiiyo muuqaalkiisa loo shidaya maba u baahnaba madaxweynaha su'aal inaad weydiiso maba u baahnaba u shid muuqaalkiisa maqal iyo muuqaal waxaad tidhahdaa madaxweynow adigoo adiga ah iyo adiga oo adiga ah iswaafaji calashaan adiga lee dib isku eeg waxaa kuu soo bixi doona inagu dhaq ceeb male madaxweynuhu bal muuqaaladaada intaad dib u daawato wixii kaaga soo baxa nagu maamul labada xasan sheekh maxamuudna mid ka mida inoo soo reeb ilaan annagu laba xasan sheekh maxamuud aan u jeednaa xasan sheekh maxamuud kale mucaarad ku ah marka mid noo soo reeb doorasho qof iyo codab qof diidaya ma laha qof kastoo muwaadin oo nool ama bini aadanka nool ayaa u baahan inuu codkiisa ku doorto qofka hogaamiye u noqonaya wax ka fiican male laakiin kooxdan ma rabaan doorasho qof iyo codab jawaab kooban maya maxay rabaan ku shubasho doorasho shaara loo soo geliyey doorasho booba la yiraahdaa dhar baa loo soo geliyey waxaa lagaaga dhigayaa doorasho qof iyo codab laakiin waa doorasho booba iska cad waayo tusaale qof iyo cod in la gaaro waqti iyo waxay u baahan tahay shaqo ma qabteen qolada talada dalka haysa waqtigii doorasho qof iyo coda ma qabteen shaqadii ka sugaysa aan fiirina marka madaxweyne xasan sheekh maxamuud halkuu ka soo jeedaa galguduud ilaa qof walba markii qof iyo cod noqoto dhulkiisu ku laabanaya meesha uu ka soo jeedo qof iyo cod ka gelaya la sharciga dhigay madaxweyne xasan sheekh maxamuud wuxuu ka soo jeedaa galguduud masagawaa ceeldheer galcad budbud halkaasuu tegaya ma tegi karaya qof iyo cod ma ku qaban karaa ceeldheer iyo masagawaa iyo galcad iska daa inuu qof iyo cod ku qabtee ma booqa kariya asaga jawaabtu waa bayan
sidoo aniga igaga dhaadhicinaya qof cod aan qabanaya marka xamse cabdi barre ma tegi kariyaa jubbada hoose jubbada dhexe halkaas qof cod ma ka qaban karaa maya iska daa inuu ka qabto qof code xitaa ma booqan karo sidoo aniga igaga dhaadhicinaya marka doorasho qof cod aan qabanaya wasiirka arrimaha gudaha Puntland ma tegi kariyaa maya dadka deegaanka Puntland ma rabaan maya ma booqan kariyaa iska daa inuu qof cod ku qabtee maya xitaa ma booqan karo sidoo aniga cali xoosh markii igaga sheekaynaya doorasho qof cod aan qabanaya wasiirka cadaaladda ninka la yiraahdo xasan macalin ma tegi kariyaa albur maya dhulka uu asaga ka soo jeedo ilaa qof cod haday noqoto waa inuu aadaa dhul murusade ninka la yiraahdo xasan macalin ma tegi kariyaa maya sidoo aniga qof cod igu sheegaa marka mungab waa nin wacbuudana dhulka uu ka soo jeedo intuu tago qof cod ma ku qaban kara isagoo xor ah lama rabo ciidan iyo technique isagoo wato lama rabo jawaabtu waa maya waayahay halkee lala aadaya marka qof cod waa su'aal u baahan in jawaab qeexan loo helo si loo gaaro hadafka dhabta ah ee la doonayo in la gaaro intaas waxa ku sheegay walaalayaal qof cod waa dimuqraadiyad midnimo jilaac iyo jareer la wada simayo qofkaasa laandheera iyo qofkaasa laangaaba ma jirayso waa in dadku ay dadka Soomaaliyeed midaysan yihiin la isku soo dhawaaday dadkuna ay wada jir yihiin ma ii sheegi kartaa maamul goboleed maanta dadka degan ay dhammaantoodba isku duuban yihiin kuwa ay maamulaan xasan gurgurta iyo dowladdiisa ka bilow koonfur galbeed xitaa digli milaf la isma rabaan iska daa qabaa'ilada kale koonfur galbeed degan hir shabeelle imo iska daa xawaadlii abgaalka shabeellada dhexe degan wacbuudhan iyo harta abgaalna isma rabo harta abgaal gudihiisana isma rabin galmudug imo 11 qabiil degan qabiil kala raba xataa kuma jiro deegaan kastoo Soomaaliyeed maanta kama jirto wax la yiraahdo isku duubni bari lagu qaban karo qof cod marka ummad kala taagan hadda fiiri koonfur Jubbaland arag isla madaxda qaranka maanta maxay ka shaqeynayaan in mareexan inta loo tago la yiraahdo ogaadeen sidoo madaxweyne idinku noqonaya qabiil cad ayaa gada laga diyaarinaya xilligan haddana waxa lagu leeyahay doorasho qof cod la bal ilaahay idinku dhaariye Soomaaliye habka wax loo wado qaabka wax loo dhaqmayo iyo sida dadka loogu sheekaynayo ma isleedahay maanta hadda siyaasiyiinta iyo dhamaanba inta u shaqeysa xasan sheekh maxamuud bal fiiri dood dishe iyo ninka la yiraahdo fartaag iyo janan gada maxay ka wadaan mareexaan oo kaca ogaadeen iska qabta wax kale ma ka wadaan maxaa laga qaban qaabinaya gudaha Puntland majeerteeno warsangeli iska qabta warsangeliyo majeerteen iska qabta dhul bahantood cadowgiina waa majeerteen yaa ka shaqeynaya madaxda dalka isku keen marka isna waafaji qof cod aan qabanaya qabaa'iladana madaxan isku gelinaya qof cod aan qabanaya laba qabiil oo Soomaaliyeed oo heshiisana ma jiro bal iswaafajiya annagu waxaan rabnaa mucaaradnimo iyo muxaafadnimo inaan meel dhigno aan runta isku sheegno si xaqiiqda loo ogaado waa in runta la arkaa qabiil kale la heshiisa ma jiree doorashada qof cod goorma imaanaysa marka see loo qabanaya maanta ma jira qabiil ku qancaya tusaale kaba soo qabo shabeellada dhexe lagu dhigay harta abgaal gudihiisa kuma qancayo hadduu qof kamida reerkaasi u soo baxo shabeellada dhexe kaliya ma degano abgaal gaal jeclaa degan jareeraa degan qabiilo kala degan ma ku qancayaan haddii la yiraahdo qof cod baa la aadayo waxaa soo baxay jareer weyne abgaalka shabeellada dhexe degan ma ku qancaya xawaadla ma ku qancaya hir shabeella qof cod intuu ka dhacay baa waxaa soo baxay nin abgaala iska daa abgaale xawaadlaha gudihiisa lafaha ay u kala baxaan xitaa kuma qancayaan war dib u heshiisiina ka horeysa wax walba waxaa ka horeeya dib u heshiisiin abni xoreyn oo dhammaanba ay dadku dareemi karaan waqtigaas isku kalsoonaasho bal cadaalad darrada ka jirta caasimadda arag gabdho ayaa la weeraray waana ka xumahay waana cambaareynaya maxaa loo weeraray dhulkoodii baa la boobay dowladda iyo ganacsataa qaybsatay dhulkii ay lahaayeen markay damceen ilaan awood kale iyo meel kale u dacwoodaan male in ay meediyaha la yimaadaan dhibka haysta xalay maxaa lagu sameeyey dhammaantood xabsiga loo taxaabay hooyada marka sida loola dhaqmay qof cod ma lala aadi karaa
hooyadii xalay laga afduubtay gurigeeda ee loo adeegsaday shaar dowladeed qofkii cod intay u soo dhaqaaqdo ma ku kalsoonaa kartaa meediyaha madaxda ka hadlaysa shacabka silicsan ee caasimadda jooga kuwa kale dhiigooda la daadinaya ee maanta Jubbaland ka taagan ma loo sheegi karaa madaxda dowladdu qofkii coday qabanaysa sidee isku diiwaan gelinaysa cadaalad ma jirtay haddaanba aniga gurigaygii oo la dhacay aan cadaalad u waayo isdiiwaan gelinta aan dowladda u aadi kara iyo kalsoonida aan ku qabi kara yaa ii sheegaya ma jirto marka waxaan rabaa bal iswaafajiya Soomaaliya meel iska dhiga kani waa mucaarad kani waa muxaafad xasan sheekhan nacabahay xasan sheekhan jecelahay meel iska dhig iswaafaji qodobada taagan isku keen cilmiga haddaan adiga lagu dhigin ilaahay aqli buu ku siiyey aqligaada ka shaqaysi maxaa kaaga soo bixi kara waa waxa aan rabo inaad fikirto adiga hadda idaawanay madaxda dalka waxaan dhihi karaa waa kuwii ugu liitay abid ee dalkan soo mara dadka qaar waxay leeyihiin amniga miyaadan arag caasimadda amniga caasimadda waan arkay waana ku faraxsanahay laakiin xilligii farmaajo yaa amni darro waday kuwa maanta talada dalka hay kuwa qaraxyada gey jira xamar waa kuwa talada dalka loo dhiibay berri markii talada dalka laga qaado oo qof kale u yimaado carbal muqdisho nabadhaasi ahaato kuwa wax gubi jiray hadda mukayfay ku jiraan kuwa qaraxyada fududay jiray hadda mukayfay ku jiraan laakiin maalinta mukayfka laga saaro oo ay banaanka yimaadaan muqdisho waxay ku noqonaysaa waageedii hore waana nasiib darro inteeda la eg waay bal idinku saaxiibayaal iswaafajiya habdhaqanka ficilada dowladda maanta jirta iyo weliba afka waxay ka sheeganayaan wixii soo kordha guud ahaanba marxaladaha taagan iyo xaaladda guracan ee siyaasadda dalka iyo dhaqdhaqaaqyada taagan intaba waxaan kugu soo gudbin doonaa barnaamijyada soo socda oo aad mar walba ka daawato youtube-kan cabdulaahi balwaan kusoo biir waa youtube-kayga labaad waa youtube aad kala socon karto barnaamijyada aan soo gudbiyo sidoo kale barnaamijyadeeda waxaad ka daawan kartaa facebooka pageka cabdulaahi balwaan falowgaree ka mid noqo saaxiibada ku xiran halkaasi si aynan ku sheegin barnaamijyada aan baahiyo ee ka baxa facebooka pageka cabdulaahi balwaan oo haddii pageka aad falowgaraysay sidoo kale isla youtube-ka janalka cabdulaahi balwaan intaanu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono waa cabdulaahi balwaan oo idinle meel kastoo aad joogtaan nabadgelyo